السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دماء أمد مسلم في مجلس الأدوك كجوفتان سومالي وين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin maalmahan oo dhan social media hawleeyay isku haysteen oo aniga iga hadlayso oo ku saabsan sababta uu u baaqday programka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday. waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay inoo geeyay inaan uga hadlo oo aan ku jirin maxaa la isha been aan ku jirin maxaa la isha dabalnaan kale horta daan sharaxa programkan sababta aan u imid horta waxay ahayd invite gareyn ama casuumaad saa u taqaanaan bal isu casuumay casuumaadaan ku imaaday oo marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaasuu programkan kama qayb gelin arrinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma imaan waxaan ku imaaday casuumaad sharaf taas halkaas taala number 1 tan labaad maxaa lahaa ii sheeg horta waxaan rabaa inaan saddex u kala dhigo waxaan saddex ugu kala dhigaa tan koowaad aan rabaa inaan ka hadlo horta waxa la yiri qofka markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhargi karaa oo markuu cunto cuno ku dhargaa hore ugu sii socdaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay inuu qofka qalbiga ka baahnaado waa wax adduunka ugu daran marka qofka markuu qalbiga ka baahan yahay markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casirka casariye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa biri ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa habeen dad ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu soo hubiyay ku hadlaa inta ka soo hadashay programkan hadda baaqashada programkan aan ka baaqday qof ku soo hadla ma jiro wax runa qof ku soo hadlay wax sax maanta oo la hubay iyo wax meesha ka dhacay qof ku soo hadla horta ma jiro marka waxaan leeyahay tan number 1 waxa uga baxaya qofka markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargi karo waa inuu wuxuu doono sameeyaa been iyo wuxuu doono taas halkaas uga baxay tan labaad aan rabaa markii aan galo tan labaad waxaan uga hadlayaa arrinta sida saxda ah ee khilaafka ka imaaday sababtay ku dhacday aan ka hadlayo horta number 1 aniga waxa ii soo diray rag baa casuumaad ii soo diray hadal rageed baan ku soo baxay go'aan rageed baan ku soo baxay go'aan rageed aan meeshan ku imaaday nagoo imaanay hotelka degan markii la gaaray xilliga habeenkii inaan isdiyaarino ahayd hoos aan u degano hotelka aan deganaa la kaliya xafladda lagu dhigay marka hotelka inaan hoos u degano xilliga laga rabay inaan hoos u degano ka qayb galno programka baa gabar imaaday gudaha noogu soo gashay markaas waxay dhahday assalaamu calaykum iyadoo gabadhii muransan markaas waxay dhahday waxaan rabaa waxaan gabadhii iyadoo waxaan u soo invite gareeyay dayax inuu u heeso nin athletic madax ah oo meeshan joogo oo ka soo qayb gala programka waxay tiri waxaan u soo casuumay inuu ninkaas aniga igu heeso aniga waa fahmi waayay hadalka wiilasha isu casuumay wiil kamid ah banaanka joogeen aniga gudaha ku jiro qolka ayaga markaa meesha ka banaanka ay ku murmaayeen ayaga yaa murmeen marka aniga maba gelinba waa hawsha dhimaystaan hoos aan u degnay marka aan hoos u degnay la rabay xafladii nooga dhiman tahay albaabka bis inaan ka galno meesha dadku isku diyaarin lahaayeen dadku modelka ku libsanay wixii oo dhan marka taaganahay ay gabadha haddana igu soo laabteen noo imaadaan iyo xaaskeeda meesha isla taagan marka noo imaaday waxay tiri assalaamu calaykum haddii aad ka qayb galayso programka waxaa shardi ah inaad telefishin bay sheegta magaciisa aanu ma aqaano laakiin telefishinkaasna inaad berrito waraysi siiso waxaan dhahay excuse me sister maxaa u baahan tahay yaana tahay intaas ka timid intaas ka socda waxay tiri qofka programkan watay gabadha programkan dhan wadatay waa aniga marka aniga hadal uma furin mana xiriwaanka anagoo yani jawaabteeda diidan bay isku imaadeen ayaga marka isku imaayay dadka programka watay ee ay isu casuuntay ayaga iskhilaafeen ayaga dagaaleen waa baxnay kor fuulnay markaan kor fuulay haddana waa noola imaaday waxaa la yiri maadaama wiilka عدنان لهاني سو عسومي عدنان كي إمادة ودحي مدحي كفير وجهي كفير مدة مخلاف حاجة ما دعي دون مركز سؤال لعملنا أنه هوتيل كوبانا ده مرة وادينا قلنا ويلشي كم إذا هاي كان برنامج كبا يعني قبل حاجة ذكري أو حدنا إيش يعني أنا قبل يبغى إصلاحين مركز حاجة سؤال إحنا يقرأ على حام وحنا إنا برنامج كذا كلام مركز هيسوي دوانين أو حاجة سكتة wiilkii markaas maxaa la ii sheegay anaga iskhilaafnay iyo wiilkii kale aniga soo dajiyaa aamurmeen markay murankiiba wuxuu ku dhamaaday inay iyagu inta soo baxaan iskal isku dalbadaan ay isku dagaalaan programka meesha ku dhamaaday qaybta labaad xaggaas oo baxay marka programka laga hadlaayo waxaan rabaa markii inaan midda saddexaad u gudbo oo beenta ay dadka magaalada wareejinayaan iyo social media iyo YouTube meel walba ay wadaan waxaan rabaa inaan taas si sax ah marka uga hadlo ee dadku ka hadlayaan وعرنت فرحيه تسد حد كسو قبل كمان تونا
horta farxiyan waxaan kaga sheegayaa horta habeenkii ilaahay baa ila ogiyey rasuulkiisa wax beenaan kuma daraayo farxiyo inta aniga sawirka ila galaysay ee iyada inta sawirka la galaysay iyadaaba iga badneenba ani oo qofba aan ima rabinba iyada dadku dhan ayada sawir la galayeen oo iyada famous kale ahaydba so waxaad tiraahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galaayo wuxuu yidhi dayax intaa marka hore farxiyo intay ka soo qaaday horta maanyaradaas iyo caqliyaradaas iyo fudeedkaas iyo hadal daciifnaantaas qof ay ka muuqato oo dhashay oo lagu yaqaanaba ilaahay igama dhigin oo miyi tan labaad marka arrinta farxiyo ka hadlaysaan farxiyo kalsoonida ku jirto ma aha meel inta la yimaado gabar tiraahdo sawir aan kula galo qof maxaa la isha ka soo fasaxay kalsooni daradaas lama haysan anaga farxiyo waa boqorad sidii boqoradii oo kale u nooshahay ragga intay meelaha soo fariistaan arrinta farxiyo ka hadlaayo oo aan xishoonin gabar dumaashadood oo aanan hadlin oo aanan inay ka hadlaan inay qalad tahay ku hadlaayo farxiyo waa rag yani raggaasi ka hadlaayo waa ragga ula nool xaasaskooda sida jaariyada ajnabiga oo guriga uga shaqeysay xaasaskooda ula nool yihiin tan uma baahno hadal waxay u nooshahay sida boqoradii nin jecel ay haysataa alxamdulilah waxaasoo dhan kalsoonida ay qabto aan wax walba ka weyn kalsoonidii qabtana heerkaas daciif uma aha inay tiraahdo gabar sawir hala gelin iyo qof taageerayaasheedana iyadaaba igu dhiirigeliso igu soo dhaweyso tiraahdo teeda kale dadka aniga taageer iyadayba iga jecel yihiinba aniga oo saxda ah marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin dadka faaniskay ah waxaan hadalkay kusoo gabagabeynayaa oo hadalkan oo dhan aan kusoo afjari doonaa hal eray inaan isticmaashaan hal eray inaan isticmaashaan wixii sida dayax si qaldan ula hadlaya aragtaan hal eray boliis isticmaalatan anaa keensan qofku markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhargaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargaayo thank you